xiisadii ku soo noqday ilaa hadda sheekadii wada naagna way isjeclaa kartaa saas waa nin uu isjeclaa kara sheekadaas ani waa ku caajis mugooteed. السلام عليكم magacaygu waa Amiin Amni muuqaalkan waxa idinku tusi doonaa muuqaal aan ku arkay barta TikTok muuqaalkaas oo ku saabsan faafinta qowmuluudnimada ee wadamada reer galbeedka wadaan inta aan u gudagelin muuqaalkan waxaan u mahadcelinaynaa walaasheen Leila oo videogan u soo bandhigtay shacabka Soomaaliyeed si ay u arkaan fasahaadka ka jira wadamada reer galbeedka gaar ahaan goobaha iskuulada ee wax lagu barto. teeda kale maanta waxaa leen xiisada qaniisiin soo mar labaad ay nagu soo noqdeen marka aragnahay waxay wadaan kale banaagta buufinka la buufiyo eg ninkan oo naagnaaga oo makeup soo marsado qaar ma wada ma fahmino waa arkeena laakiin maanta waxaa la xogay roob noo da'ay roob iyo baraf isku helnay marka arki doonaa xiisadeeda ku noqon rabaa wax yar kadib meeshaan ardayda waxaas waa xiisadii ku soo noqday ilaa hadda sheekadii wada naagna way isjeclaa kartaa saas waa nin uu isjeclaa kara sheekadaas ani waa ku caajis mugooteeda kale maanta soo socdeen waray keen mugo kiniiniga keeneen kiniinigaas oo maalin walba qofkii rabo inuu cuno soo ay girlfriend boyfriend isla kulmaa maagtay uur hadaad rabo inaad qaadin kiniinigaas maalin walba hal xaba ka cun kula kiniiniga loo markaa caadada ku hayso xanuun iyo waxaas markaa dhibsato aad rabin kiniinigaas aa cunee عاد دمك إيمانه صورة صعاني حروان إنه الملان يوريدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كون شرطه دي لها نجا مفان تذكر الكوندوم كينن كوندوم كاس صاحبك لعل هذا أو سميني هي استعماله إنه ووالنتينا ويلكاسم جوسي حل حبي جودة فرتوا كنا بوفينو زمانك الله قال أنا ضد خطك بحياني روان والله بلا أنا جو حسم كيلين سومالي أنا مفاهنا dadka dadaas oo dhigi doono waxa iskuul maan iskaaga tag soo iskuulin dhan way simayn faayn waxa iskuul kasta la isku baraa beenan ila sheegin soo qof walba akhlaaqdiis iyo waxa waay iyo diintiisa uu haysto. waxyaabihii la yaabka lahaa ee aan ku aragnay muuqaalkan waxaa ka mid ah inay keeneen kaniiniyaal kuwaasoo loo isticmaalo waxyaabo kala duwan sida kaniiniga uurka ka hortaga ayagoo leh isticmaala kaniinigan marka aad Google App la sameynayso boyfriendkaaga si aadan uur u qaadin. wax labaad ee isweydiinta mudan ayaa ah inaysan wax ixtiraamba u muujin gabdhahaas da'da yar ee muslimiinta ah kuwaasoo halka u yimid waxbarasho balse gaalada ujeedadooda kaliya waxay tahay faafinta dhaqamadooda xunxun ee qowmuluudnimada ah. waxaa mahad leh waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtooda markay yaryar yihiinba bara diinta Islaamka mar walibana ka ilaaliya dhaqamadan xunxun ee qowmuluudnimada ah inay tahay wax aan fiicnayn laguna naartagi karo. markan adiga idaawanaya aan ku weydiiyo bal su'aal waa kee wadankii ugu horeeyay ee sharci ka dhiga inay isguursan karaan dad isku jinsi ah ama qowmuluudnimo waxaad haysataa 5 second ee bal ka jawaab. 5 4 3 2 1 dabcan hadaadan garanin aniga ayaa ku sheegaya ee i dhageyso. waxaa markii ugu horeysay qoomkan fasahaadka ah lagu sharciyeeyay dalka Netherlands. Netherlands waa dalkii ugu horeeyay ee sharci ka dhiga qowmuluudnimada. waxay sharci ka dhigeen inay isguursan karaan dad isku jinsi ah sida rag iyo rag inay isguursadaan ama dumar iyo dumar inay isguursadaan.